بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وفي سيدة آيادا أنت معناه بالله بيت المامس وعكلوت المامس عذر كمذا عذر رضا dadka qaar ku dhaca cudurkaas oo ah xaasidnimadaasi qofka markay ku dhacdo sifadan ilaahay sheegay ayuu ku sifoobaa. ilaahay wuxuu yidhi: in tamsaskum xasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafraxuu biha. haddii aad guul iyo wanaag gaadhana waa ka naxaya xaasidku, haddii ay dhibaato iyo mushkilad kula soo gudboonaatana wuu ku farxaya. laakiin xaasidka noocaas sifada aadka u qallafsan ee liidata leh maxaa warkiisa aad iskaga xidhi kartaa ama aad kaga badbaadi kartaa? ilaah baa tilmaamo wuxuu yidhi: wa in tasbiruu haddaa u dhabareegtaa u sabirtaan, wa tattaquu ilaahayna subxaana wa tacaala ka baqataan oo xiska ilaahay cuskataan oo xadhigga ilaahay qabsataan, laa yadurukum kayduhum shay-a. shirqoolladooda iyo xaasidnimadooda waxba kaga qaadi maayaan. cidnaba ha u biqin, cidnaba ha ka habran, xaasidna ha u jabin, le'annu si kaleu ku qanciyaa ma jirto in ilaahay subxaana wa tacaala ku baabi'iyo mooyaan. sidaa awgeed inaad cuskato weeyo sabirka iyo alla ka cabsiga si aad xaasidka uga adkaato. ilaah waxnu ka baryaynaa inuu cudurka inaga ilaaliyo, kuwa ku sifoobayna sharkooda ilaahay inaga duwo. qof kasta oo kiliifka shaargareeya walaalkiina u faafiyana ilaahay waxaan uga baryayaa cudurka inuu ka badbaadiyo, sharka xaasidiintana ilaahay subxaana wa tacaala u ka indhasaabo.